gobolka waa ka shaqeysaa degmooyinka gobolka wuxuu ka kooban yihiin 5 degmo ee gobolka waa ka shaqeysaa 5 degmana waxa ay kala yihiin degmada Gumbax, degmada Baargaan, degmada Caluula, degmada Muraayo, degmada Bareeda iyo waxa soo raaca xafiis nooga furan magaalada todobada xarumood ku kala sheegay waa 5 degmo oo maamul 5 degmo xafiisya iyo labada xarumood oo soo raaca tooxin iyo si toos ah u soo xirada gobolka dakhligiisu wuxuu ku tiirsan yahay badda waxaana wada shaqeyn buuxda leenahay oo dakhli mideen leenahay wasaaradda kalluumaysiga magacaayo badan oo naanaysa ayaa lahaa sida raraaye iska roge qaada iyo xaabsade maadaama aan dakhliga gobolka geyn jiray gobolka bari akoona nooga furaa wasaaradda maaliyadda dadka deegaankuna ay u haysteen in aan gobolka bari u shaqeyno lacagta halka la geeyo nidaamka shaqada ay la socon laakiin muddada hadda bangigu noo furaa oo halkaasna bangigu noo furaa magacaas waa iga haray magacaygi ahaa Maxamed ama xisaabiga gobolka ayaa hadda lagu yaraa number 1 waxa ay ah mideynta dakhliga number 2 xisaab xir joogta number 3 dhismaha bangiga waan ka qayb qaadanay hadaan nahay wasaaradda maaliyadda madaxdeeda maareyntii dakhliga kharashka iyo maareynta barnaamijkan loo yaqaano FMS joogtay gobolka 50% oo horumarina 50gaasi sanad buu qaadanayay sanadkii dambe waa loo cusboonaysiiyay intii ka dambeysana waxay la mid ahaayeen xeebaha gobolka xeebaha Puntland bay la mid ahaayeen waxay qaadanayeen 20% horumarina 20gaas wasaaradda maaliyadda hadaan nahay waxa wakiilka ah oo aan dibna gacanta ka saaraa gudoomiyaha gobolka isla markaana isna wuxuu ku wareejiyaa gudoomiyaasha degmooyinka isagoo eegaya baahiyaasha degmooyinka sida ay u kala meeysan